ka dhalinyaro ahaan maanta maxaa la gudboon maxaa dhayi kara mahadhada ku beeran ee dhabarna hayska biday ee ay ka dhaxleen kuntan jirka maanta jira jiilka maanta jira waxaad dhex imaadeen bulsho maanku gaagaxay waxayna indhaxasiiyeen jahwareer idinkoo tii ku jira ayaa leengeeyey dugsiyadii u gumaystuhu dalka keenay taasi oo ujeeddadeedu ahayd maandhufaanidda barbaarta xeryaha loogu xareeyey aqoon-yahanka maanta jira waxay qayb ka yihiin burbur aysan ogeyn doorka ay kaga jiraan macallimiintii way gabeen doorkii looga baahnaa inta baaqiga ahna waxay la daalaadhici nolol maalmeedkooda haddii aan xaqiiqda layskaindha tirin ma jiro cid kaa saacidi in aad han weyn yeelato aadna rumaysid riyadaada nidaamka jira ma ahan mid kaa saacidaya hirgelinta himiladaada oo ma lahan qorsho guud oo qodobkan u astaysan qof hankiisu yahay hunguri ha ka sugin inuu hankaaga kugu taageero ka bulsho ahaan waxaynu nahay mujtamac quustay laakiin diidan inuu quusta isdareensiiyo kuna dadaya cadiifad aynan jawaab u hayn inta aan ku soo xiro baydkan xigmadaysan ee suugaanta ah kulammada sawaxanka leh suti muranka yaaliya salowgooda baxaya suruuc buu dugsanayaa darajaan la kala sidan kala socdo laba ruux haki iyo sug baan jirin dabuubta hadalka oo kooban qofka inuu ka baxo jahwareerka maanta jira waxaa u horseedi kara 1 cilmi dhalinyaro awoodda la sheegayo idil waaba aqoon dal kasta oo horumaray dal kasta oo wax gaadhay wuxuu ku gaadhay aqoon buu ku gaadhay dal kastoo burbursanna wuxuu ku burburay aqoon la'aan oo halkaa laga qabsaday aqoontu waa furaha nolosha aqoontu waa furaha horumarka inaad ku baraarugtaan baan doonayaa aqoontu wax weyn waa ciyaar maaha ilaahay agtiisana wax weyn bay ka tahay shahid allahu annahu laa ilaaha illaa huwa waalmalaa'ikatu wa uululcilmi baa la yidhi arag ilaahay magaciisii malaa'igtii kolku ku xijiyey cilmiga kuwii u saaxiibka ahaa baa lagu xijiyey rusushii laguma xijinin ambiyada laguma xijinin waa cilmiga kuwii u saaxiibka ahaa baa lagu xijiyey balaag xigmadda ku jirta marka cilmiga nabiyullaahi muuse calayhi salaam kolkuu yidhi waxbaan garanaa waxbaan aqaanaa addoommadeenna ka tirsan baan kuu soo diraynaa layidhi oo xogaa yaroo maaragtay cilmi aan barnay waa xogaa yar hadda waxa la baray waa khadir markii loo soo diray khadiru markii loo soo diray ayay wax walba way la ahaan weysay oo waatuu uu yidhi innaka lan tastatiica maciya sabran samir ima lihid maxaa waa inaad iga sugtaa bal marka hore waxa aan samaynaa ficilka ha soo boodin sug maxaa sidaa u yeeshay dheh bimacnaa nebi muuse calayhi salaam ayaa loo faa'iideynaya weeye micnihii faa'iideynta haddaba isaga maahee innaga ayay nagu socotaa innaga ayay nagu socotaa faa'iideynta innagaa la doonayaa inaan faa'iidaysano kuwa lala hadlaya haddii gooraale waa innaga ma aha cid kale ma aha qur-aanka wax tegey ma aha waa wax taagan xayunkaa inuu weye maxaa sidaa laynala hadlayaa waa maxay sababta inaan dhug lahaano maankanaga inaan ka shaqaysiino inaan dawga toosan raacno kelmadda cilmi waxaa qur-aanka kariimka lagu xusay in ka badan 800 oo jeer taasi oo inoo muujinaysa ahmiyadda uu cilmigu leeyahay in la gaaro gunta xikmadda ku jirta mas'aladan waa mid u baahan isxilqaan shakhsiyadeed iyo baxsi dheeri ah dadku inta badan waxay isku khaldaan farqiga u dhexeeya dugsiga iyo waxbarashada qodobkan wuxuu ka mid yahay arrimaha ka indhasaabay bulshadeenna in ay arkaan godobta dahsoon ee dugsiyada ku lamaan dugsigu waa hal shay waxbarashaduna waa shay kale labadu mar walba kuma lamaano midba midka kale in ardayda lagu bari waayo manaahijta dugsiga farqiga u dhexeeyo labada qodob
waa dhaliil uu manhajku leeyahay mar kale macallimiintuna badi ay sheegisteeda gabeen. mid xusuusnaaw, haddii aad dugsi ku jirto iyo haddii kale had iyo jeer inaad wax isbarto waa isxilqaan goor kasta adiga lagaaga baahan yahay. waa inaad wax ka ogaato adduunka aad ku nooshahay, in aad fiiro gaar u yeelatid, in aad tixraac samaysid una raadcaysid si ka qota dheer dadka kale. diinteenna suubanna taas ayay ina faraysaa. waa middaas ta kuu horseedi nolosha in aad lahaato hore u socod. ugu horrayn cilmi raadi oo cilmigaaga raadi. cilmigu yuusan noqon mid laga soo minguuriyey dadka kale. marka hore adiga dib isugu noqo oo isbaro. naftaada la khalwee oo ka warayso baahidaada iyo doonistaadu waxa ay tahay. baro dhaqankaaga iyo xeerka nolosha ee ay ku dhaqnayd bulshada aad ka soo jeedid. adigu isbaro oo huwiyaddaada baro. inaad ogaato taariikhda alexander waxa uu galo iyo waxa uu gudo noloshaada waxba kuma soo kordhinayso. waxaa lagu jiraa xilligii ugu habboonnaa ee uu qofka naftiisa wax isbari karo. waxaa jira dhallinyar bartooda yuutubka soo geliyo cashiro qiimo badan, iyagana wax ka baro. dhanka kale culimmada soomaaliyeed ee qiimaha badan iyagana wax ka baro. marka aad gorfeen xaaladaha aad ku sugan tahay, inta aadan cid kale weyddiin su'aal, marka hore adiga isweydii. waxaad heli doontaa jawaabta ama waxaad la imaan doontaa su'aal ka fiican tii hore. weli wakhti ayaad haysataa, laakiin in aad wakhti haysatid nafta ha u sheegin, sababtoo ah waxay kuu horseedi in aad caadaysato mareegta dibudhigista. noqo akhriste, booqo maktabadda. bugaagta waxaad ka heli wax kugu noqdo filanwaa. filanwaaga waxa aad ka heli ma aha buugga aad ku bilowdid wax akhriska, ee waa buugga uu kugu hago buuggan hore. akhriska iyo barashada aynu doonayno waa mid ku salaysan astaamaha aynu xusnay iyo qaar kale oo la halmaama. dhanka kale dugsiyadu waxay ardaydu u sheegaan in ay u akhriyaan si ay dhibco fiican u keenaan dhibcaha maaddooyinka loo dhiga, balse uma sheegaan ahmiyadda uu akhrisku leeyahay. haddaba waa maxay akhrisku? akhrisku waa shaaca ka qaadista siraha daahsoon ee nolosha. waxaynu u baahannahay in aynu fahanno xigmadda ku jirta kelmaddii ugu horraysay ee qur'aanka la soo dejiyey ee ahayd iqra', taasi oo micnaheedu ahaa akhri. intaa kadib u istaag inaad nolosha faaqidid oo aad la falgeshid. maalin walba noloshu waa halgan hor leh, iska caabin hor leh. waxaad u baahan tahay inaad u halgantid si aad noloshaada u tayeeso, sababtoo ah noloshu waa isbeddel joogto ah, hore u socod joogto ah. sidoo kale jir ahaan iyo dareen ahaanna waxaad ka mari isbeddello kala duwan. waxaa isbeddelaya sida aad wax u aragtid iyo sida aad ula macaamili arrimaha kugula soo darsa waayaha nolosha. qof walba wuxuu leeyahay laba doorasho oo kala ah in uu rajo dhigo oo uu gacmaha isa saarto, iyo inuu u istaago noloshiisa oo uu u halgamo. haddii aad is leedahay waxaa jira doorasho saddexaad, waa lagu marin habaabiyey. haddaba u halgan noloshaada maalin walba, marnaba ha rajo dhigin, sababtoo ah waxaa jira dad kugu tiirsan kuna aaminsan, mana doonayaan in ay ku arkaan adiga oo nolosha ka taagan meel aanan kuu qalmin. waa lagugu soo tabcay meel sare ayaana lagaa filayaa. sidaa darteed ha joogsan ee horay u soco maalin walba. ileen adiga ayaa wax iska dhigi kara. inaad nolosha u halganto macnaheeda ma ahan inaad u dagaalanto, balse waa in aadan rajo dhigin. waa in aysan dhulka ku dhigan caqabadaha kugula soo darsa waayaha nolosha. waa in halka aad u jeeddo aysan ka awood badin kaana hor joogsan dareennada kugu lamaan oo ay ugu horrayso rabitaanka nafta.
waa in aysan ka awood badin dibna kuula harin dabeecadaha taban ee qofka ficilka ka hor istaaga. halganku waa in aad la soo baxdo awoodda kugu qarsoon una adeegsato horumarinta noloshaada. awooddaas waxay ku horseedi in aad beddeshid bay'addaada adigoo marka hore ka bilaabayo isbeddelka naftaada, kadibna dadka kugu xeeran, kadibna dunida kale. daruubta oo kooban u istaag noloshaada una halgan maalin walba. waagu markuu baryana malahaagu ha wanaagsanaado, maalintuna ha kuu bilaabato adigoo dhoolla caddaynaya. maalin walbana qabo 2 shay oo noloshaada u horseedaya hore u socod. taasi waxay ku horseedi in aad rumayso riyada aad higsan. ballanteedu waa guul. bismillaah waxaan doonahay iyo wixii damacaygu yahay degdeg baan uga hadlaa. warkayguna daahid ma leh. wadani qaran daaficiya midkii laga dayriyaba daruus baan ku hagayaa, waxaan ku dabiibayaa ujeedada lagu dabaqay dariiqay ku habaraa. waqtigu deganaansho ma leh, dabba aadmiga dhex yaal, dakana qiil weyda iyo dareen baa lagu saladay. duruufaha laga cawdiya halkii laga dayriyana dunidu waa ka hortagaan, dadkuna waa isdaba qabtaan, dalkoodana waa dhistaan, dantoodana waa gartaan. waxbaa nala degay annaga, sibay u dayaysan tahay, sibay isu diidan tahay, daymadu waa kala fog tahay, haddana isma doonayaan. dhib iyo daal iyo wareer markii qaar soo dabcaan, haddii qaar diidmo iyo dacaayada faafiyaan, dood iyo muranaan dhammaan haddaan laga daalahayn. miyaan dalka loo naxayn? miyaan dib la eegahayn? ragga iyo dumarkii arlada maxaa dulahaan ku dhacay? malaha anigaa daman oo bilaash u durdurunaye, dadkuwa maba aha dadkii, sibay u dallagan yihiin. dareenkiibaa ka maqan, dadnimadii baa bedelan, damiir naxariista iyo dulqaad iyo talasul ma leh. barkood maba diirayaan, dangood uma howlgalaan, dalkana uma dhiidhiyaan. wixii degan ama dayacan dan iyo kama laha muraad, dalaal bay nala rabaan. kuwii dalka hanan lahaa horay u daciifiyeen, kuwii dalka hanan lahaa horaa loo daciifiyo. degnaanta iyo baylahda, duudsiga ciid iyo badiyo daandaansiga keentayoo dadkeenna waxaa la baday waxayse dareemahayn. danaha isticmaarka iyo dabeecada aan la garan markay dalka soo galaan, haddaan isku duubno iyo muwaadiniin daacadoogyga daafaca la helin, dulmigu waa badanayaa, dadkuna waa lumahayaan. qaar baa laga dayriyaa, qaar baa dalowyada ka dhaca, qaar baa duhurweerar iyo duulaan iyo bowanday, qaar baa darajiya xil iyo dantooda haddaysa helin dal iyo dunyaba u naxin. hoog iyo kala daadintana dad badan baa lagu xantaa. haddaba dulucdiya murtida dabeecadahan bedelan, duruuf laga soo gudbiya nacayb aan dawoobahayn. darxumo lama doonaye, daraan kala maarmi karin markay dan wadaag noqdaan. dariiq xiran baa furmee, dadweyne iyo culummo iyo aqoon-yahan iyo duqow intaa isku dabaqada markay daacad wada noqdaan. rabbigay deeqiisa iyo degeni lama waayaye, dugsiga gobonimada iyo dalkiiyo diintii alloon difaacna ha lagu matido. ilaahuna daryeelo daa'ima una gargaar. adduunyadu hayaaniyo waa hawla badanto, digsinima lahayniyo hurdaaye u darante. adduunyadu hayaaniyo waa hawla badanto, digsinima lahayniyo